السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي كسو دبادة برنامج صبوان وهاللي دونا سيدا الله حاليا مشكلاتك برنامج كاسو تحانينا نقن دونا إن شاء الله هاتنا كسو دبادة قيبت كوبادة برنامج كينا هردع وحاوبالا qof kasta oo ku nool dunida guudkeeda ay soo food saarayso dhibaatooyin ama caqabad ka hor istaaga inuu gaaro hadafkiisa ama ujeedadiisa alaaba waxay mushkilaadka ka hor yimaadaan dadka kale hadafta kuna mashquulsan siday u xaqiijin lahaayeen uguna miro dhalin lahaayeen himilooyinkooda waxaan oran karnaa qof aan hadaf lahayn waxaa mushkilo iyo dhib ugu filan inuu nool yahay hadaf la'aan lama soo koobi karo mushkilaadka qofka bini'aadamka soo food saaraya nooca ay yihiin sida ay u dhacayaan waxa isaga mushkilad ku ah ama uu arko inay mushkilad ku yihiin waxaaba dhacda in dad badan waxaa mushkilad ahayn ay ula muuqato inay tahay dhib weyn oo aan laga tallaabi karin dhibaatooyinka waxay qofka kaga imaan karaan dadka uu la dhaqmaayo deegaanka uu ku nool yahay ama waxay noqon karaan dhibaatooyin la xiriira shakhsi ahaantiisa sida caafimaad darro dhaqaale xumo amni darro iyo wixii la mid ah haddaan tusaale ahaan u soo qaadanno deegaanka waa arrin qof kasta oo Soomaali ah fahmi karo dhibta haysata dhulkeena iyo ummadeena waxaan oran karnaa waa dhib saamaysan qof kasta oo Soomaali ah sababtay dhibaatooyin baaxad leh oo dhaqafaar iyo jaawareer ku noqotay caalamka aan ku noolnahay miyaanan ahayn mushkilad taagan oo u baahan in laga gaaro xal waara haddii ay sii socoto dhibtani saameyn intee leeg ayay ku yeelan kartaa mustaqbalkeena iyo jiritaankeena mushkilaadku waxay noqon karaan kuwa adiga kuu gaara waxay noqon karaan kuwa aad la wadaagto bulshooyinka aad la nooshahay waxay noqon karaan kuwa culus oo u baahan ka baaran dad fara badan waxay noqon karaan kuwa si sahlan looga tallaabi karo haddii la fahmo sida loo furdaamiyo axbaabii waxaa suuragal ah in qofka xaliya dhibaatooyin soo food saaray isagoo raacaya tusmooyinka aan dib ka sheegi doono insha allah alaaba dadka raaca tusmooyinka aan sheegi doono waxay boqolkiiba boqol ku guulaysan doonaan inay xaliyaan dhib kasta oo haysa axbaabii waxaa suurowda in qofka khibrad iyo waayo aragnimo ka helo dhibaatooyin uu kala kulmay sooyaalka nolosha waxaad inta badan maqashaan iyadoo la leeyahay arrinta rugcada iyo odayaal haloo geeyo maxay tahay sababtu waa iyagoo la soo kulmay dhibaatooyinkan kuwa la mid ah kana dhaxlay khibrad iyo waayo aragnimo sidaa daraaddeed ayaa dadka ku dhaqan waddanka Shiinaha waxay mushkilada u yaqaanaan fursad sababtoo ah waxay aaminsan yihiin inay tahay jaanis lagu kasbado khibrad iyo waayo aragnimo ujeedada aan ka leenahay muuqaalkan waa inaan iftiiminno waddada loo maro in la xaliyo mushkilaadka soona bandhigno qaabab inaga caawin kara inaan si sahlan ugu gudubno dhibaatooyinka waa maxay mushkiladdu waa duruufaha adag ee ku soo wajaha kuna diida inaad ka guurto duruuf aad la nooshahay una wareegto marxalad kale ama waa caqabadka ka hor istaaga inaad xaqiijiso himilooyinkaaga caqabadkaas oo saameyn ku yeelan kara jiritaankaaga qorshahaaga fikirkaaga dhib kastaba ma shar baa mushkilad kasta ma ahan shar baraxla ee waxaa jira dhibaatooyin badan oo laga yaabo inay mustaqbalkaaga anfacaan aadna ka hesho faa'iidooyin aad u aydo tusaale ahaan qofka ardayga ah waxaa laga yaabaa inay soo gaadho dhib fara badan inta uu ku jiro halganka waxbarashada iyo duulaanka qorshaysan oo uu ku qaaday jahliga waxaaba suurooda in waxbarashadaasi furo noqoto mustaqbalkiisa oo dhan ilowsiisana wixii dhib ahaa uu kala kulmay xilligii ardaynimada boqor ka mid ah boqorradii Shiinaha ayaa waxaa laga hayaa inuu yidhi dhibtu waa furaha fakarkuna waa furaha aqoontuna waa furaha farxadda iyo guusha axbaabii intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa qaybta koobaad ee barnaamijkeena inta aan ku kulmayno qaybta xigta waa anigoo Cabdirashiid Ceeblaaba oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo